الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله أينما كنتم في أرض الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد تحية أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم sunnadiisa maxaa ka mid ahaa bishan shacbaan markay 15 gaarto. xadiidka marka waxaa yimid xadiid dhahaya nabiga sala allahu calayhi wasalam haddii shacbaan uu kala bar noqdo habeenkeedana qiyaam uu istaaga iyo salaad, maalinteedana sooma. xadiidkaas waa xadiis culimada ayuha alaxiba ay daciifiyeen, oona bal ay ku tilmaamay inuu yahay daciifun jidda, mid aada u daciifa inuu yahay. laakiin waxaa kaloo jira xadiis kale oo dhahayo marka habeenka la gaaro 15 ee bisha shacbaan, asna naftirkiisa hadal kama marna, culimada qaar way ka hadleen. xadiiskaas isna wuxuu yahay sida imaam at-Tirmidhi uu ku soo saaray fi sunanihi min xadiis Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu inuu nabiga dhahay sallallahu alayhi wasallam ilaahi subhanahu wa ta'ala habeenka 15aad ee bisha shacbaan ayuu rabbi subxaanahu watacaala wuxuu daalacada adoomadiis, markaasuu fayakfiru lijamiici khalqigiisa oo dhan ayuu alla u dembi dhaafaa ilaa 2 qof marka laga reebo, ilaa limushrik, mid mushrig ah oo macnihiisu yahay mid ilaahay cibaadadu xaqa u lahaa ilaahay subxaanahu watacaala adoomadiisa la wadaajiyo, ilaahay kaas uma dembi dhaafo. sida qur-aanka uu ku sheegay ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله uma dhaafo qofka wax la wadaajiya oo shirki sameeya, laakiin wixii intaas ka soo hara Allah wuu dhaafaa. waxaa kaloo ilaahay uusan habeenkaas uusan u dambi dhaafaynin ilaa limushrikin, waan soo sheegnay, aw mushaax, mid asiga iyo dadka muslimiinta walaalihiisa cuqdad iyo xumaan ay dhex taalo. saas darteeda marka qofka muslimka xumaatada iyo waxyaabaha qalbigiisa ku jira, arrintaas qalbigaas jiran darteeda waxay keentay inaan markaas habeenkaas dadka loo dambi dhaafa aan lagu darin. habeenkaas marka ayuu alxabi waa habeen runtii aad u qiimo badan oo aad u weyn, oo ilaahay subxaanahu watacaala adoomadiisa oo dhan intuu daalacada uu fiiriyo oo ilaahay subxaanahu watacaala u dambi dhaafayo ilaa qof mushrik ah ama qof asigii walaalkiisa xumaan ay dhex taalo ma ahani. shirkigana waa dembiga weyn, dembiga ugu weyn ilaahay agtiisa lagala subxaanahu watacaala waa shirki. ina ashirka la dulmun cadiim, shirkiga waa gardara weyn. saas darteeda marka shirkiga halistaas uu leeyahay, cuqdadii iyo cadaawadana ayuha alaxiba oo dadka qalbigooda ay ku jirto iyadana wax matali. saas darteed ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay fii qowli uu ku dhahay yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allah biqalbin saliim, maalin aysan xoolay ilma aysan wax anficaynin ilaa inuu ilaahay la yimaado qof qalbi saliim ah ma ahani. qofka muslimka marka waxaa laga rabaa qalbigiisa 3 arrin midooda inay ahaato. in marka koowaad naftiisa uu dadka walaalihiisa uu ka hormariyo, oo sida ilaahay uu ku sheegay wayusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim qasaasa. midda labaad waxay tahay qalbiga qofka muslimka laga rabo laa yu'minu axadakum xataa yuxibu liakhiihi maa yuxibu linafsi, midkiina iimaan dhammaystiran lagama helin ilaa uu walaalkiisa la jeclaado waxa naftiisa uu la jecelyahay uu khayrka ah. midda saddexaadna waxay tahay in aadan qalbiga qof muslim xumaata aadan u gelinin. waxbaa laga gali karaa, dad baa wax kaa sheegi kara, dad baa wax ku dhihi karo, maca daalika in arrintaasi ilaahay dartiisa ugu cafisid miyaadan jeclin adig inuu ilaahay ku cafi subxaanahu watacaala. dadka halayska cafi axibatii fi llah. hada wama kana min tawfiiqin famin allahi waxdah wama kana min qadayn aw saawin aw nisyan faminii wamin ashaytaan. wassalaamu calaykum waraxmat allahi wabarakaatu.